dadka waxa ugu aqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyadsanaya kuwaas cuqaal abu nabigu yiri sharaftii adduunyada karaamada aakhirana kuwaas la tagay asxaabu rasuul sallallahu alayhi wasallam qarnigan qurunta adduunyada soo martay qarniga u khayr manaa bay joogeen saasayna ilaahay uga cabsoonayeen adduunyadu lama weyneyn aakhirada la weynay asbaabtii ashyaadu lama weyneyn amalka saalix ee iimaanka la weynaa makhluuq lama weyneyn ilaaha khaaliq amarkiisa la weynaa man lam yarda biqada'i wa lam yasbir albala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyakhruj min bayna as-sama'i wa ardi falyaltamis rabban siwa'i ba ilahi hadith al-qudsi man lam yarda biqada'i qadaha wixii aan ku xukuma adoonka raali aan ku ahayn nicmadaydana aan igu shukriyaynin balaayada aanu keenana ku sabraynin samadii arlada aniga samaystay ha iga tago meel kale ha qabto rabbi kalena ha samaystay ba ilaahay ila ayna hakum mashghuulin shahawatka arzaqat hungurigu waxaad cunayso inuuna ku seejin daacada ilaahay la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikri allah ay an ta'ati allah quraanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan waa dacwad taama ilaahay baa dacwadayna siinaya ubadkaanu shaqeeya ubadkaanu ordaya iyo xoolahaaga xisaabinaysa daacada ilaahay inay ku seejin